madaxweynihii hore ee maamulkii xibin iyo xeeb maxamed cabdilaahi aadan tiicay oo dhowaan laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Belgiumka iyadoo loo haystay inuu qayb ka ahaa burcadbadeed qaati ay ka taagan yihiin maraakiibta beesha caalamka dowladda Belgiumka ay qayb ka noqotay maraakiib iyagu ay leeyihiin in lagu afduubto qaybna ay ka noqdaan maraakiibtii madax furashada looga soo furtay xeebaha wadanka Soomaaliya madaxweynihii hore ee xibin iyo xeeb mudane tiicay ayaa loo haystay inuu ka mid ahaa saraakiishii ama hogaamiyaashii burcadbadeedda Soomaaliya muddo dheer ayuuna ku qaatay xabsi ku yaala dalka Belgiumka madaxweynuhu dhawaan ayaa la sii daayay dalka Mareykanka ayuu gaaray waxa uu si toos ah u sharaxay qaabka uu u dhacay afalkii isaga lagu soo eedeeyay iyo burcadbadeednimada kaalinta uu ku lahaa kiiska sida u dhacay iyo tiicay inay dhab tahay qayb ka mid ah kiisaska lagu eedeynayo inuu qayb weyn u ka qaatay mudane tiicay isagoo dalka Mareykanka jooga ayuu sharaxay in kiiska ugu dambeyn uu noqday mid fashilmay maadaama dhowr jeer la isku dayay ayuu yiri tiicay in la rumeeyo hase yeeshee ugu dambeyn alla uu ka dhigay mid meesha ka sii baxo mudane tiicay oo iska bari yeelay inuu burcadbadeedda Soomaaliya ka mid yahay isagoo dalka Mareykanka ku nool waqtigana ayuu sidoo kale wuxuu sharaxay kiiskan iyo sida micnihiisu ahaa qayb ka mid ah shacabka Soomaaliyeedna aynan ka warqabin tiicay wuxuu yiri waan hubaa in qayb ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay aaminsan tahay inaan anigu lug ku lahaa burcadbadeedii ka dilaacday xeebaha Soomaaliya laakiin taa waa been waayo anigu marnaba waxaan ka mid ahaa dadka ka bari ah oo aanan wax luga ku lahayn burcadbadeedda Soomaaliya waana sababta kaliftay ayuu yiri xabsigayga ugu dambeyn inuu noqdo mid go'aankiisii laga gaaray oo noqday mid markaa la igu waayay dambiga la igu eedeynayay horta marka koowaad ilaahay bay mahad u sugnaatay maaragtay waxaan waxay ahaayeen qadar Allahi igu qanciyay ayaa mahadaas kale marka koowaad marka labaadna yahow ma ahayn meeshu dalka Belgium sharciga ka jira sharciga aan fahmi karno ama aan naqaano ma aha waxay isticmaalaan sharci maaragtay fahamkiisu adag yahay 4 sano iyo 2 bilood waxa socotay maxkamad waxa socotay maaragtay dagaalan iyagana laga rabay cadeemo inay keenaan maaragtay eedaha ay ugu soo jeedinayaan annaguna aan keenaynay maaragtay cadeemo badan hadda ayadana u baahan in waqti badan fasiraadeeda laakiin marka la soo koobo wax dambi ah oo cadeyn ah oo ay keensadeen ma jirin intii maaragtay isku kabkabeen oo ka abuureen magaaladii joogan dhexdeedana maxkamaddii ugu sareysay Supreme Court-ga aan u naqaano ayaa burburisay taasaana xor iga dhigtay maaragtay haddana waxa furan dacwo aan anagu ku dacwoonayno intii la xirnaa iyo dhibkii iyo magac haleyntii iyo maaragtay sumcad qaadidii iyo wixii ay sameeyeen maaragtay magdhowgeedii iyo in xal loo helo mar walba waxa dhacay waxay ahaan xabsiyan ku jirnay markastana maxkamad markii la tago maxkamad kale loo gudbaayo maxkamadii koowaad oo kale markay xukun rido ay maaragtay iyadoon cadeyn iyo daliil hayn ay xukunkii ku raacday kumaanu qancin maxkamad kale aan tagnay hadda 7 bishii November oo maaragtay sanadkii hadda aan ku jirno bishii hore ayaa maxkamadii ugu sareysay dalka Belgium ayaa go'aankii ugu dambeeyay aan la tagnay tii ayaa nagu raacday maaragtay inaanan annaga dambigan la sheegayo aanan lahayn iyadii baan ugu raacday